الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا به وإقرارا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربي تبارك وتعالى wuxuu ku manaystay addoomihiisa mu'miniinta oo min ummati Muxamed ah mawaasim iyo xilli cibaadeed aad u fadli iyo khayr badan oo ajarka iyo thawaabka la badiyo la laabo dunuubta iyo sayi'aadka iyo aahaamtana lagu dhaafo manaasisha iyo darajaadka jannadana ilaahay uu ku rafaco dadka ahlu dunyaa ah gaar ahaan ganacsatada dadka ganacsada waxaa jira xilliyaal oo ganacsigu uu ribix laga rajaynayo badan oo loo diyaar garooboon la dayicin sidaas oo kale ayaa cibaadaduna waxay u leedahay xilli cibaadeed ah oo ajarka iyo thawaabku uu aad u badan yahay cibaadadii lala yimaado dunuubta addoomahana ilaahay uu u dhaafo iyo sayi'aadkooda haddana ilaahay subxaanahu watacaala darajaadkooda jannada uu kor u qaado xilliyadaas waxaa ka mid ah 10 maalmood ee bisha dilxija ugu horeyso oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisana ku dhaartay waalfajri walayaalin cashrin culummada mufasiriintaahi hamiinada 10 ah waxay ku fasireen inay yihiin 10 hore ee bisha dilxija nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday sida saxiixu lbukhaari iyo sunani abi daawuud iyo sunani tirmidi ku sugnaaday uu ku yaallo xadiidku halkaa laga helayo min xadiidi cabdillaahi bni cabaas nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam cabdullahi bni cabaas baa nabiga ka warinaya qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam maa min ayaamin alcamalu الصaalixu axabu ila allahi ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ma jiro maalmo camalka saalixa oo maalmaha dhexdooda la sameeyo uu rabbi ka jecel yahay 10 maalmood camalka la sameeyo yacni 10 maalmood oo bisha dilxija ugu horeeya camalka saalixa oo la sameeyo markii la barbar dhigo ayaamaha kale oo maalmaha ka soo hadhay camalka saalix oo 10 la sameeyo baa ilaahay ugu jecel yahay tabaaraka wa tacaala camalka saalixani waa caam ay camal oo camasha saalixaadka ah oo qurubaadka ah oo rabbi loogu dhowaado oo ridihiisa iyo jannadiisa lagu dalbo caradiisa iyo cuquubadiisana looga badbaado dalbo oo ah camalka ilaahay jecel yahay addoomihiisana la jecel yahay rabbina uu u sharciyeeyey inay rabbi ku caabudaan nabigana looga dayanayo loolana jeedo ilaahay wejigiisa liajli illaahi loo samaynayo camalkaas baa la yidhahdaa camal saalixa camalka saalixaahi 2 shardi buu leeyahay inuu yahay camal mashruuc ah oo sawaab ah oo nabiga looga dayanayo sala allahu calayhi wasalam iyo inuu yahay camal khaalisa oo ilaahay wejigiisa loola jeedo ibtiqaa'a wajhi illaah loo sameeyo 2 shardi hadduu waayo ama mid ka midihii uu dhimanaado camalkaasi ma noqonayo camal saalixa
ikhlaaska haddii uu waayo riyaa buu noqonayaa iyo nifaaq, rabbina ma aqbalo. waxaan ilaahay wejigiisa loola jeedin rabbi ma aqbalo. haddii uunan mashruuc ahayn oo nabiga looga dayaninna bidco ayuu noqonayaa. allana tabaaraka wa tacaala waa ka qanisan yahay in bidco lagu caabudo. allahu tabaaraka wa tacaala haniyun can ilbidca, bidco hani buu ka yahay. sidaa darteed camalka shuruudii la yimi mashruuca ah ilaahay wejigiisana loola jeedo, camalkaas baa camal saalixa ah. camal saalixa oo maalmaha 10 la sameeyahay wuxuu ka fadli badan yahay ayaamaha kale. acmaasha fadaa'il badan baa ku soo aroortay, hadday salaad tahay, hadday siyaam tahay, hadday xaj tahay, hadday sadaqo tahay, hadday jihaad tahay, hadday birulwaalideyn tahay, hadday silaturaxim tahay. fadaa'il badan baa ku soo arooray. fadli markii la yidhaahdo waxaa weeyaan waxaa un laga fahmahayaa yani fiihi ziyaadaة اlأjri wاthawaab, fiihi ziyaadaة اlأjri, ajarkiisaa ziyaado ah, thawaabkiisaa badan. aragta ziyaadaة اlأjri wa kahrat الthawaab. marka acmaashaasoo idil oo kulligeed ay ku soo aroortay fadliga noocaas oo kaleetaa ayuu haddana maalmahaa sii fadli badan yahay oo aad iyo aad u sii fadli badan yahay. jihaadka fadli baa ku soo arooray. weliba caaisha waxay leedahay nabiga ku tiri sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa ahaa, naraa ana aljihaada afdalu alcamal afalaa nujaahid aw kamaa warad canha. nabigay ku tiri sala allahu alayhi waalihi wasalama, waxaan aragnaa oon ra'yeynaynaa yani waxay nabiga sala allahu alayh wasalam ka ogaadeen oo fadliyaho ku soo arooray jihaadka bay ka hadlaysaa. waxaanu arkaynaa jihaadku inuu yahay afdalu alcamal. marka haddaanu haweenkeenahay macshara nisaa afalaa nujaahid, miyaynan jihaadayn oo afdalu alcamal aynan anaguna nasiibka iyaga ka qaadanayn? ila jihaadku haweenka waajib kuma aha, farad kuma aha, ragga unbuu farad ku yaho waajib ku yahay. sidaa darteed bay marka waxay jeclaan lahaayeen inay fadliga ku soo arooray jihaadka ay nasiibkooda ka helaan oo iyagana loo ogolaado loo fasaxo inay jihaadaan. nabigu wuxuu ugu jawaabay, laakiin calaykunna jihaadun laa qitaala fiih, waxaa idinku waajiba jihaad aan dagaal iyo dhiig la daadinayn oo ah alxaju waalcumra. waa xajka. xajku runtii waa jihaad. xajku waa jihaad. waa jihaadaan dhiig ku daadanayn, oon seef iyo waran midna la isu qaadanayn, iyo bunduq iyo xabad midna aan la isu qaadanayn, laakiin runtii jihaad ah aad iyo aad uu qofku u dhibtoonayo mujaahado uu ku jiro. almuhim marka xadiidka waxaan kaga dan lahayn cibaarada ay caaisha tiri, waxaan aragnaa inuu jihaadku yahay afdalu alcamal. jihaadku marka afdalu alcamal ah ayuu kasii fadli badan yahay camalka saalixa oo maalmahan la sameeyo. sidaa darteed bay saxaabadu waxay ku yidhaahdeen, yaa rasuula allah, wala aljihaadu fii sabiili illaah, xataa jihaadka fii sabiili illaah maalmahaani camalka la sameeyaahi jihaadka way ka fadli badan tahay miya? faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama, wala aljihaadu fii sabiili illaah ilaa rajulu kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay. xataa wala aljihaadu fii sabiili illaah ma gaarayo maalmaha camalka la sameeyo ilaa nin baxay oo jihaadkii u baxay oo naftiisii iyo maalkiisiiba la baxay. naftiisii wuu bixiyey inuu jihaadoo dagaalamo oo markaa uu ku shahiido. xoolihiisiina wuxuu u isticmaalay jihaadkiiba u isticmaalay. marka naftii iyo maalkiiba wuu isku daray, jaahada binafsihi wa bimaalihi. naftiisi iyo maalkiisiiba waa ku jihaaday.
oon markaa waxba la soo noqon, waxba aan la soo noqon, maalkiisiina dadkii mujaahidiinta ahaa uu nafaqo u noqday iyo naftiisiiba, isagiina dagaalkii jihaadkii ku dhintay oo ku shahiiday oo naftiisii la soo noqon. ninkaa mooye inta kale camalka maalmaha la sameeyo 10 ee bisha dilxija ayaa ugu fadli badan. haddaba camalka saasa oo fadligiisu uu aad iyo aad u badan yahay maalmahaas, ayaa haddana maalmaha waxaa ka sii gooni ah oo 10 maalmood fadliga la qabta, fadli gooniyihiina uu ku soo arooray maalinta carafo. maalinta carafo gaar ahaan in aad loo badiyo muxuu ahaa acmaasha saalixaadka loo badiyo, hadday soon tahay iyo hadday dikri tahay iyo hadday sadaqo tahay iyo hadday silaturaxim tahay. acmaasha saalixaadka ee qurubaadka ee ilaahay loogu dhowaado in maalinta aad iyadana loo sii badiyo. 10 maalmood bay la qabtaa camalka la sameeyey, camalka ugu fadliga badan oo ilaahay ugu jecel yahay maalmahaas camalka la sameeyey inuu yahay. laakiin haddana carafadu waxay la sii gooni tahay fadli kale oo dheeraad ah, oo ay habboon tahay qofka mu'minka ahi inuunan dayicin. haddii maalmihii kale wax unsi ka noqdeen, maalintaas 9aad inuu marka aad ugu dadaalo camalka saalixa, dikrigii uu ku dadaalo, istikfaartii uu ku dadaalo, ilaah barigii uu ku dadaalo, qur'aan akhriskii uu ku dadaalo, soonkii uu ku dadaalo, maalinta uu soomo, sadaqadii uu ku dadaalo, yuunan un yaraysanin camal un saalixa maalinta. sababto ay tahay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayaa waxaa laga wariyey si ninka la yidhaah saxaabi lagu magacaabo abu qataada alansaari oo nabiga ka warinayo sala allahu calayhi waalihi wasalam, ayaa abu qataada wuxuu leeyahay ana الnabiya sala allahu calayhi wasalam qaal صiyaamu yowmi carafa inii axtasibu cala allah an yukafira السنة التي بعده والسنة التي قبله. maalinta carafo soonkeeda waxaan anigu ilaahay ka ajar filanaya, oon rabbi ka filanaya, nabigaa odhanaya sala allahu calayhi waalihi wasalam. maalinta carafo soonkeeda waxaan rabbi ka filanayaa inuu alle tabaaraka wa tacaala uu ku dhaafo sanada ka dambaysa iyo sanada ka horeysaba. nacam, yacni maalintaas hal sana ka horeysay oo lasoo dhaafay, sanadii lasoo dhaafay iyo sanada dambe oo iman doonta oo jadiidkaaba in ilaahay subxaanahu watacaala dunuubteeda ku dhaafo waa fadli aad iyo aad u weyn. marka hore waxaanu soo niri maa min ayaamin alcamalu الصaalixu axabu ilى اllahi maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihina axabu ilى اllahi min hadihi اlayaami اlcashr. 10kaasuu ku jirtaa. waxaa la dheeraad ah soonka maalintaa la soomaahay 2 sano dembigeed ayaa lagu dhaafaa. waa fadiilo aad u weyn, aad u weyn oo inan maalmaha kale la wadaagin, bilaha kalena la wadaagin. maalinta carafo waa maalinta 9aad ee bisha xajka, bisha dilxija, maalinta 9aad oo hadda aan anagu ku dhex jirno. maalintii 8aad baanu ku jirnaa, maantoo 4 ah maaragta. bisha 9keeduna waa beri oo khamiis ah bay ku aadan tahay. soonkeeda la soomo oo soonkaa loola jeedo liwajhi illaahi tabaaraka wa tacaala, liwajhi illaahi oo ah soonka iyo cibaadada ilaahay sharciyeeyey inaad u fulinayso in rabbi tabaaraka wa tacaala amray, rabbina jecel yahay, rabbina addoomihiisa mu'miniinta u sharciyeeyey, addoomihiisana uu la jecel yahay. wax ilaahay jecel yahay addoomihiisana la jecel yahay oo daaco ah oo rabbi sharciyeeyey inaad gudatid, haddana aad ilaahay uga doonaysid
tabaaraka wa tacaala inuu kugu dambi dhaafo oo kugu naxariisto oo jannadii kugu geeyo uu kaaga raali noqdo cadaabkii iyo caradiisii iyo cuquubadiisiina kaa badbaadiyo. bihadihi niya qofkii u sooma dembigiisii sanadii hore iyo dembigiisii sanada dambaba waxaa weeyaan waa loo dhaafaya. xadiidka imaamu muslim iyo atirmidi labaduba way wariyeen. imaamu muslim saxiixiisuu ku wariyey, imaamu tirmidina sunankiisubuu ku wariyey. lafdigan marka hadda aanu akrinay waa lafdiga muxuu ahaa imaamu tirmidi. lafdiga muslim wuxuu ahaa aad buu u dheeraa oo maalmo badan oo la soomayey baa ku jiray oo ay ka mid tahay yowmu cashuuraa ay ka mid ahayd. marka wuxuu ahaa lafdiga muslim. wa su'ila can sawmi, yani su'ila rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can sawmi yowmi carafa. nabiga ayaa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalama soonka maalinta carafa. markaasuu nabigu ku jawaabay yukafiru asanata almaadiyata waalbaaqiya, yani maalintaas soonkeeda rabbi wuxuu ku dhaafaa sanadii tagtay iyo sanada baaqiga ah ee soo socota. waa fadli runtii aad iyo aad u weyn. guud ahaan 10 maalmood in lagu dadaalo, daacadii lagu dadaalo. qofkii marka uun ilaahay wax uun daacada ka waafajiyey waa ilaahay mahadi. marka inuu sii badiyo 2 maalmood ee ka harsan oo ah maalinta 9aad ee beriya iyo maalinta ciidda. maalinta 9aad waliba uu soomo oo soonkeeda 2 sanaba lagu dhaafayo. maalinta ciidda iyada lama soomo, laakiin fadligeedu wuu badan yahay oo 10kiibuu la qabayo. xadiidkii hore bay soo gelaysaa. marka uun maalmaha in laga faa'iidaysto oo weliba maalinta beriyo kaleeta oo 9aad la soomo, dikriga iyo ducadana aad iyo aad loo badiyo oo laga qaniimaysto, aad bay runtii noola gudboon tahay. nas'al allaha tabaaraka wa tacaala an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana. waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.